xabsiyada dalalka Liibiya, Indiya, Itoobiya iyo Seychelles ee ka soo jeeda gobollada waqooyi ee Somaliland ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay ku sheegeen inay u yimaadeen in baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan kuwa gobollada waqooyi inay dib u doortaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaana nahay gudoomiyaha dhalinyaradii Liibiya laga soo celiyay gaar ahaan gobollada waqooyi Somaliland. waxaan Muqdisho u imid inaan ka qayb galo ololaha dib u doorashada madaxweynaha taasoo ah dib u doorasho aan weligeed hore loo arag. runtii shacabka Soomaaliyeed oo dhan ay ka wada qayb qaadanayaan. runtii shacabka Soomaaliyeed waxay ka dhursugayaan ama ay u dhagtaagayaan 15 May oo ku astaysan maalinta loo asteeyay doorashada. annagoo ah dhalinyaradii xabsiyada kala wada duwan ee dunida laga soo daayay kuna hadlayna afka dhalinyaradaas kala wada duwan ee laga soo daayay xabsiyada kala wada duwan ee dunida sida Liibiya, Indiya, Seychelles iyo Itoobiya. dhalinyaradaas oo iyadoo aanay jirin maalin aan uga baahi badnayn maalintaas inuu qarankayguna barbar joogsado noona muujiyay madaxweynaha garab istaag iyo hiil aan dareennay in qarankayguna barbar joogo. si kastoo tamartiisu weli u yartayna oo haddana tamar iyo tacab isugu geeyay sidii dalkeen hooyo uu noogu soo celin lahaa. haddaba waxaanu ka codsanaynaa xildhibaanada sharafta leh guud ahaan gaar ahaan xildhibaanada gobollada waqooyi oo aanu ka soo jeedo iyo sidoo kale guud ahaan xildhibaanada kala wada duwan ee golaha shacabka oo dhalinyartan iga dambaysa nin walbaaba uu gobol ka soo jeedo. waxaan ugu baaqaynaa inay ixtiraamaan tixgeliyaan codsigeena oo ay u cusboonaysiiyaan madaxweynaha sharciyadda si uu u dhammaystiro howlaha baaxadda leh ee socda. waxaanu mar kale idinka codsanaynaa inay idin codsigeena tixgelisaan oo idin madaxweynaha qaranka dib noogu doorataan si howlaha baaxadda leh ee socda uu noogu dhammaystiro. mahadsanidin mudanayaal. ugu dambayn waxaan leenahay dhalintaad ku tacabtay baa aabbo garabkaaga joogta aabbo dib u dhac ma ogelin aabbo noo dhammaystir howlaha dhiman aabbo. mudane madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo shalay sida noo garib taagtay had abaalka noo gashay had xabsiyada nooga soo saartay yaan maantana aan ku garib taagina guuliso madaxweyne guul insha Allah guul. waxaan leeyahay madaxweynaha qaranka federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne sida shalay noogu hiilisay ee aad xabsiyada nooga soo deysay ayaanu maanta ku garab taaganay. insha Allah waxaan ku rajaynaynaa guul baan insha Allah ku rajaynaa madaxweyne. shacabka Soomaaliyeed oo dhan dhammaan way ku garab taagan yihiin. xildhibaanadan waxaan leenahay mar labaad noo soo celiya farmaajo. Maxamed Cali Weheliye, Universal TV, magaalada Muqdisho.